أنا واحد مركان كله رجوع علمه إن نسكان نافع عن نجيب شراء يجيب شراء هذا أفدارا أيه وده الدوح عركة كجاء سوريا ما عندهم كلا الله ما رك مركو قبصه رجوع كلا فتحان سنة قاربة ونا يا سمك يعيش وحك عايشة في البحر بحر بدي يكونوا شيء كافي يقولون ده ترى هذا مركا رجدي وكلافتان سي وحيري wax badan baan calqada jaan mid la dhacay baa arkay kolka waa shaqaraaray wax badan baan calqada jaan iyo ku cindana geelay 10 iyo anon loox dhigtaa ka carfi roonay way nisbahanay baan u maleynaya horta ragwa culimo Allah inagu anfaco waxa weeye culimanimadii darajada aan Allah ina gaarsiiyo de waxa ogtiin inama yakhsha Allah min cibaadihi al ulama inta haddaan ka gudbo Soomaalida gabaygu malkadeebu ugu jira ama afku qiimaheebu leeyahay sida wada taqaaniin ninkii abwaanka ay looran jiray Salaan Carabi wuxuu ahaa nin habar jecel u dhashay dabeeto nin jufadooda ah oo aan nin fiican ahayn baa nin dilay jufada uu ninka ka dilayna waxa ku jira neefku inta leeyahay oo olol la yiraahdo olol baaba leeyay raganimo iyo banasiyo kulayl iyo adeeg halku ka gaaray olol iyo salaam baa la iska hor keenay salaanna wuxuu leeyahay magta naga qaata ololna wuxuu leeyahay qaadan mayno wax la wada baaf kuwa balaaya salaam baa gaashanka u daruuray oo riixay magti ogolaysiyo halka kaga qabtay hangoolka dabeeto maktibay sidii ku bixiyeen oo olol iyo jifadoodii maktibay qaateen ninkii sidaan filayeen oo deeriya Allah waxaan u maleynayaa aan fiicnay inay wax dileena Kenya galay waa dambo salaan Kenya tagay ayaa aad loo soo dhaweeyay dawaan in abuuhan oo maansiyahan oo dhaqankiisida de ummad walbana dhaqan iyo diin bay leedahay wana abuuhan oo dhaqankiisida salaam baa dabeedna lagu soo ururo hoobaanta afkiisa ka qodanaysa baa dhagaal loo raariciyay deedna kii uu abaalka badan ku lahay dilka ka sii daayay taadogaydu u maray uu olol ka furfuray hadda waa ninku olol ka furfuray ayaa yiri maxaad ka dhageysanaysaan waa adeerkayo dhalafalooqoobay anigu asaasaqay salaam baa sidaa u eegay wuu wallahi kale dumarkana uu ka meeqan liita sababtoo ah olol baabad ka sii deys inta wax kale ba la gaarin abaalkaad ka iideysay iyo milkihi iyo sharaftii aad ku lahayd kuma marin salaam wuxuu yiri xubin ragisku teedna salaam wuxuu ku metelay dumarka intay umulaan habeenkii umulayaan yiraahda ilaahu ninka dib ha kuugu celi mar dambe haddana way iska soo unsataan oo dawasi ilaahay ugu tala galay meeqaankii uu sii dhaafiyay halkaas uu hoos mariyay wuxuu xubin ragisku waajahay haday xayga ka cadaato afku wuxuu la xoog yahay magayga hawda ka jara oo waranka sida xayska horaan nafuu u xidigaya hadda salaam wuxuu oran doona sida xayska hora ayaa nafuu u xidigayaa dumar kuba xublada foosha way xanaf wareera belinay xusuus daran yihiin xaylka kale moog xaylku markuu awrkaasha sayra aan idin bare kaasa xayl la yiraahdo inay rimantiyo inay tabsan tahay buu kala ogaanaya belinay xusuus daran yihiin xaylka kale moog ninkii bay dawoonsanaysaa buu leeyahay waxba yaanu xeerkay marin waxba yaanu xeerkay marin xoolana ay siine xaashi in libin ka xistiyay xumihi waaya ani waxaan uga socdaa meeriska ah xubin ragisku waajahay hadday xayga ka cadaato afku wuxuu la xoog yahay magliga hawda ka jara sida xayska horaan af loo xidigay qiimaha afku lahaabaan wali ku wada gabaygu qiimo halku wax ka goyn jiray nin la oran jiray Rabiyo ciida galaha oo reer roob laha jilibkiisa qoladaydan de saacadi aan isaga sheekayna waxa weeye dhaqanka qasbaya oo wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila li ta'arafu al ma'rifa faqat تشوفوا ولي قبيل والبدني ولا بتشوفوا كسو جيدا انتي halkan fadhida
nin la yidhaahda Raabio saa markaan idiin sheegay ciidagala ah oo barlaawo ah amaan cuud lahayn ayaa geela ciidagale gaadiga meesha la yiraahdo daaqaya oo dhugan caso daawrku ku doobinayo kadimaama reysimo oo boqol ka reysimo la yiraahdo ayuu badan ka caana dhamayo kolkaas uu qooqay halkeed qabataa buu oga ayanu Ismaaciil iyo habli la amaari jiray wisi sii daay hadda waa habli reeno Ismaaciil cidiba jireen cidiba may goyn jireen tabeeto ina reeno Ismaaciil ku mareeri deedna markii heshiiska lagu baarintamay in qabuusha ay dhacdo ayuu hadiyo goorde dumarku waa ku ogaadeen in ku wuxuu haysto deedna wuxuu yiri halku reysin geel ugu fadhiyo waa kadim halku reysin geel ugu fadhiyo nimanka reer roob leh waa raadkoodii ma garanayso ee waliba rich man ku yeey raafiyada waadigu Ingiriis waa dhigtay ma garanayso aan ku cid dhigtay ma qaane ee waliba rich man ku yeey raafiyada waadigu ma raaci kayn rays laban ramad ku maalay ramad ku geel dhalay mise rabadin ka soo fadhi lagu raad qaaday ma meesha waad gaar cunante wax kuma dhigin oo tahan weeday inta musliga ka soo dhacdo geelasha ciidagalo dhex keenayso war gabadha idinkan idin soo gursay geeli halun baa laga soo saaro konton halaad baa lagu duloodo waa qiimaha isku leeyahay ma garanaysaa hadaad taagto kuma soo raacdeen oo faraad inta geliso ma garanaysaa ma haye magaciisii afar siyoodo guurku ahaan jiray mar xaraga iyo xoolo wada socdo marna hadii la haydankeeda leeyahay wuxuu ahaa dhabar garaac ninka hooyadii la soo dhacay rag oo iskala sarreyn jiray isaguna aabihina deelandheeru hooyadiina naqaafo ma ahayn marna guurku wuxuu ahaa heerinkaasi naf muu lahayn oo muu sheeganayn marna guurku xeelad buu ahaa soo hadamaad garan wakiin ninkii inta xeeladaynayay afku qiimuhu leeyahay baan ku sheegayaa ee lahaa konton baa ka dhalay geela iyaga koro hayaankii nirgihiisa lama koobi karo kayn hadduu galay koramada dhex qaadaana waa kun iyo dheera koramada hadda hal malaha koramada dhex qaadaana waa kun iyo dheeraade aan karuurka wada doonane kabaha soo qaado hadii kala kadabkeed gooyay kuudud qoladiina gabadhii sidii buu ku guursaday markay todoba baxeen ayay ku tiri xarde geeli reysimada ah karimada ah sheegaysa orad kala xarayso xana kaaga dhigay deedna wuxuu gabay buu tiriyay ku qotoba mahmaahday hay dumar beenna waa lagu soo xirageliyaa runna waa lagu dhaqaa kolkaas uu yidhi todoba ha geela iyagu turiya waaweyn to yar iyo tuweynba todoba laba way takarisay way takarisay way dhimatay maxay laba way takarisay shan baa taagan xeradii waa shan maxay iga tisoobaan rigu waba taaqure waa ku sidee waxaan iga kala lumayay sheegaysaa waa maxay dirgaay ugu waa midhkanuuna iyo shantan neef maali afku qiimuhu leeyahay baynu wali daba soconaa Ismaaciil mire ninka la yiraahdo dhulbahantu ha darwiish buuha nin qalas dhalay oo daraawiish buuha oo ragii Sayid Maxamed Cabdullah Xasan oo tababaraya ragga waxna waa boon waxna waa foolaad nin foolaada buuha aftahanyana ninkaas inaanu dhalay ayuu meel alla meel ku tariyo midada aakhira isawa dadif ayuu garan waay inan kibo la hadlay wuxuu yiri abdi oo xusuus kugu dilay walad xumaada xaniyaalihi kula sinna xoogsi buu tagay haragada rag baa qorsado xarkiibsada niman baa diyaarada ku xiran xima samada hablaha xural leeraha rag baa xamar u tagay xeebinto maro soo ma garan hablaha xural aynta rag baa xil ku guursada hadaba afqura dhan kaliya waliidin ka wada waliba dhanka iga fahmaysaana ayaan haanta ka dhaaminaya nin la yiraahdo isaguna qowdhan moose oo jilibkan reer xamadka la yiraahdo isagoo ciida galaaba uga fariistay inaan isaha qola kalena dhanbay uga soo fariiso qoladii kale ayuu gaashaanka u daruuraya markaa ومودي نول باي iyagu wada waanu ka dhigroona waanu ka afroona qowdhan laakiin wax uga dambaysa qowdhan
qorigiisa waxba kuma jiraan waxaan gabay hayn inantii uu la hadlayna inta qamar baa la oran jiray wuxuu yiri qarbad lama xambaareen rataa qaba la saara reerka ku guursanaya waa ku raran doonaan haanta iyaga ahaantay kugu soo dhaansan qarbad lama xambaareen rataa qaba la saaraya sidii qaalin layliya ana qorta ku laline ay qorafkii jilbu kugu murxine qamaray noo kaal qusuusidii goobtii baanu neen qamaray noo kaal waa ku sidee qamar waxan bay tooyay gabadhaana qolada tagayna qowdhan baan raacay qowdhan bay soo raacday waxbayaan hadalku ugu daalinine dhowr sanadood markuu qabay ayaa qowdhan loo soo yara doon qowdhan ayaa loo soo yara doon qowdhan reerkiisa xaq markay soo dul fadhiisteen gabayuun buu ku kiciyay yuu anfac midaan u keeno anfac oo wax la cuno midaan u keeno iyo bariis midaan u iidaamo isaxaaq dhammaantiiba waa loo abaal gudiye waarha imaan xumaanina waqtigu waa inoo imanib haweenay soo gelayaan ma garanaysaa oo daween xoolaysan doona markaasina sidoo goobta wuxuu kala qaadan hadda ma garanaysaa macnaheedu waxaan idinka wadaa gabaygu iskeeda adduunyo in lagu helay dad nool oo madaxa tima ku leh ayaa lagu helaabaan ku abalada ka waran timeanay markaa dhab ahayn dad nool oo madaxa tima ku leh baa kolka ayaa markaa gabayga lagu helaa adduunyo intuu dhaafo soo hadaymaad garan haddaynu halkaa kaga gudubno tii afka iyo dee gabaygu wuxuu yahay daadiinan markaan sidaa u wada eegay waxaan idiin soo qaadanayaa hees yaroo jiifta ahayd oo ninkii la odhan jiray sayid maxamed cabdilla xasan inan yaroo uu dhalay uu farayay inantaa yari waa 11 jir gun iyo baar qofka caydigan dabka baydhka ahayn ilaa odayga goxoshaaga ah isoo gutay foorsaday wixii lagu waanin lahaa inantaa yar ku waaniyay wuxuu ka dhimay dhaqan iyo diin wuxuu ninkaasi ka tagay iyo gobonnimo iyo sharaf in qof loo sheego hadayna rag baynu nahay waxaan wuxuu sheegayaana waa inan baan idin 11 jira idinku de secondary iyo rag jaamacada iyo soo maaha meelaha inantu eedadeed bay farto waxay ku tiraahdaa aabahay waan aradanaya dhariigu doon marbuucda ma doonay Mareykaanta iyo keen hees yar bay tiris heesta adigu xoga yaro jajaba baa ku jiray intuu inantiisa heesteedii fahmay ayuu wixii kala gudboonay waalidnimo ayuu raaciyay wuxuu yiri qaali waxa tiraahdan 6 qodob buu sheegay bal hadayay ku dhaafin wariya qaali waxa tiraahdan waa inantii qowlkaagi yimi waxa di soo dir qorxi hadalkan aad tiri qarba boosh ma fiicne toosi maansada wariya magaalan ku dhashoon dahay oran dhaqanka waana daba gasha ina yar bay heedban ku 11 jira qorxi hadalkan aad tiri qarba boosh ma fiicne quraankana halaayo waa laba salaadana qalowdi ويدانا قاردو والد لقوما قوقه وافر صومها قبان يفر سما برو ياند قيمة بيلين تنين بعد مروه ونقنطون تاي قبان كيفر سما دي قريقا برو قوت كان إساقا طور من كرباها قاته قف صوريدي يقف لونه مدنها النقن سيدا أتشيغا صورتا كاهو طب مركا قادة السنة اللي بدأت ديلتو لبدا بلا وحشونا يدل بلا مديش markaad qaadaysana inaad waraabo ku toortay ku daba maray oo hunguriga halkii foosha xun oo kula galaba aad gasho dil lagu dhaw walaalkan laga yiba faasaxdo oo kana isaga toor ninka raba ha qaatay bal shanta qodob soo kala qaad muxuu yiri qurxi hadalkan aad tiri qarba boosh ma fiicnee waa dhaqankii iyo suugaantii iyo hidihii umadu lahayd ilaali
oo qof ka maran ha noqonin tusaale imika dadkeennan maran baan kuu sheegaya dad maran baan idin baraya berigii la odhan jiray food khasaaray 760kii agga siyaasaddan wax idinka tusay ayaa habar yoonis wax iska soo sharaxay 2 nin mid dhuxul baa la yidhaha aad buu afdheeriyo ay buu wata kolbuu ka dhufanaya dhuxul macalibnaa buu ka qoro waa nin loo yaroo tegay dhibna markii iyo nin la yidhaahdo xaaji mi'atayn daabaa loo qarnaya qiyaastee xaaji mi'ataynna waa nin soomaaliya oo dee bayuur habar yoonis oo caadiya waxaa qudbadeeyey ninkii la odhan jiray ii soo garo dhuxul wuxuu yihi ferestary my general institution uu midhaya dhegaysa hadda anigu NFD iyo Djibouti iyo Safarian xoreynaya buu taasu general institution ku dhigay wax aygina ugu yar fanaya kale wax ilaahay abuuray oo ayaa fahmi waayay islaam reemiyo habar yoonis arigu ka oomay baan ku ariga ka ooma iyadu NFD iyo dilayeen gedelay Safarian toona ma fahmayso xaakimaatay ma iska soo kacay inaga daay intibaarkii qabsay inaga daay ninkan ayga wato isku qolaba maniin aygiisa idan ku ceeyo markaas tiraadaan gurigiisa gale taorta inay soo eegaysa waa tuma taaliiri de waa ma hore kaasimiyaana heblaayana saayid ma waa heblaayo si horta inantii ma xalaalaysa طيب ده هاي أول حلالي سوري كاسنا مالين هبلا هاي أو أكيد وكب حياة حين تيم كان تقول لك تاع تبقول روح ماشي تشوقي بوشجون ندت كي مثلية أيون نقطة يقولي هذا الكبدين معي سديدا عالين غير موسى إسماعيل كعبنا وان سبدنا يا هبر وهبر كذا أغلق كسب بتصير ترجور مسبدنا يا أنا قابو عظيم دولنا marka wixii umadu ay fahmaysay ayuu kula hadlay ragiyaad ka soo leeyabka badna arabna nin professor ka soo baxay wuxuu yiri inta ay soo taagay 8 kalmood markii wali baa laga qabta wuxuu yiri ferastari governmentiga waxa soo process gareeyo ministeriskana waxa soo process gareeyo central council kuna wuxuu ku qotama general institution then saasu budgetka dawladda halka markuu marayo midagta oo saaro shirkadda arab intaas ku filan macnaheedu ani hal isfaamo macnaheedu ninkaasi wuu midhay marka waa laga qaaday oo nin kala ka soo baxay meeshii qofku markuu maran yahay oo dhaqanka ka maran yahay iyo diintaba bulsho islaam oo bulshada uu ka soo jeeday ma xukumi karo inagu Soomaali baan nimaka tusaalahan 1960 ka habeenkii calankii xorriyadda la taagay intaan la isku darin waa kii 7 cisho inaan agaal haystay intaan xagga loo gudbinin waxbayaan hadalku gudaalinine habeenkii madax meesha la ilaa beerta xorriyadda wixii gabi karayay iyo wixii heesti karayayba wuu heestay ama wuu gabi aan soo qaadano ragga calanka la dhaxsanaa ragna weer buu xidhay habeenka waxaan meesha ka dhashay oo ma dakalu ku diidana ragna wuu la dhacay raggi la dhacay abdiidan farax baa kamid ahaa istiqlaalkan leeysiiyay iyo amarkan lay dhiibay afrikadan xorowdiye nasrigan unka wada gaaray amin qofka fiidkiisa saqdiyo ogta waa bariga iridan kameerada markan ku arka guudkayga inaan anigu kaliday helay ilaaha tawa calankii afar iyo 10 bilood inaan ku raacay alos curata Soomaaliya wada lahaanteen afarta naas oo horayaan sida ileelad agaamihiye dhiilashan aad u culanayni ka amuuma waa taa muddo qonarsaneedeen si uu taasuula wala dhacsana ninka la yiraahdo qaasin ma darwiishkiibu ka soo saaray xabaashi Sayyid Maxamed Abdullah Xasan الله يا درويش كيف رهند بحسن قارسية ورنيك أنت ودقاء الله قال إنجليز الله يا دلون في يقول كده بقى صار الله يا درمان فرتقان دو قوها سيء
الله يا دولة تلاح وقد ما شاء إن طريقة الناس هو الدين سوق على وقتنا عبد الله حسن وركزين ولا يد طريقة أو ضبكوا شنو ركل الدوام يسير صاري الله يا أفلم الدعية تعذب الشيء عنك يا ورهما أنت واقعي فرحة دي معني تما عدا جرار كعن كاتري علن كانوا سوق إن سهم كيس هين سيجد إن كم ميريو سريو من نسقامو أنسيري هاي أجنة كانت يبكنا صار وحين لوران كريه مركي اللي يجري أيه واحد سوق قال إني اللي لا جهال عبد الجهير هو حن بك الدول جهال وحليه هاي ماشي الدولة الإسلامية كما يدلن كلا قويد يسقدر مدنا كما هذليه لكن وحليه النظام الإسلامي ماشي كما يدلن تذكر إن قبصة لكن ملها دين ملها إنما مثل كرا وحليه هاي إنجليز كعداء باقعي لكن دد مدو أو ربايضة أو كسي بصر حل أي ماشي كذا كذا تذكر بصر كحن تذكر بصر كحن وكذا تجينا وهل إيدي تونا قلنا عند مانين أين قنطون إلا ما أنت ما يا بنتي حيابنا وحوي جهادو حجر جور يا أبيس بيس بدلي جرنا ما يسانين كتير إنك ماشي قبصة والله بمس خطرة ومن ده هذوك غرفتان هذوك ولا نعين جور يا أبيس بيس بدلي جرنا ما يسان جوري علمي وكتير جوميس كهوا إنجليز نشي وكتير جوين بعاصن يم عجباري كرال كامل جورينه هل كانوا جود مدوي هاي وانك قصدي مركا صومات جرنين وين عقالك هبين كقصدي وشيء كرال كامل جورينه هل كانوا جود مدوي كرالنا نم برا سابو إنجليز سابوها كرال يعرف شيء يسويه يلارن يفيشريه رجي سومالا بريتش بروتكتوريت إنسان لا يلا قبل هذا وقوي أنا قارن ما ينه هاي سنشري أيوه هاي رجع سنشري بهاي كرال كامل جورينه هل كانوا جود مدوي بالقبصة تذكر مران أيام كل شيء جيا هذا عدا قبصة والله يسكت درايو شن سندود بو هايست لا نفع ولا ضرر حدا مسوكر دين مركب بكيلها وحل إيرين شري عبارتي بكيل قلق كاد عادي سومالية الدرحمادي كل عادي لا يهال كان يهال يا مب اللي جواد لو كلا أمس سلاح على يوكله أيام مركب بكيلها قول اللي إيرين شري آدم بعد عاي وده يقول الكيا عبارة بدنا إلهي في ذا آدم ودع قاسم أي حد نجبيه قاسم ولي ما فهم سرعة يقولوا كقلوا عضي وحول إن معايا النقر بدلينا إلى تليي روب كي رحنا تمايجها وضيق بلا بركة أبو لي لولا تيجي الدلة دي نحش كسر نصيب بين لنا هدنا هذا صون نحن سجينا عطوش نقول كسودو وحنا على قبيه نبضي وكنا والله آدم بشيء آدم باتجي واحد قبصدي عبد الرشيد على شرماركه عبد الرشيد بو أيوه حكوا فهمه إنه مريين برتا سوى حكوا فهمه عبد الرشيد نو هدنا وقوده عبد الرشيد برتا سوى حكوا فهمه قال سنو يقول اسم الدورين قال كان دري يدارتك قال يدوش ميدا بكسومالي بدقول كمودة مسنا لقو ما دير صدق قلبي جوا تركي كرر هبين كسوق هذا مرك فرق تدوّد هذا الندود بكدم بي تيم اللي ترجع هاد مركب قبصتي وتم عدنا وليس قلت تم عدى وهل كورم بكهية سجالك السندود سفد الدولة يجي يسوي كده بما ولينا عالم كويس كسرنا مركب لو قصنا نقول إنه قلت دلنا ودي حين قال بعيدا كود مختنه تبي يعقوب قاعدينه تلقي ويقول شو داي ومهدي صومات قرن تيم اللي ترجع هاي تذكر كان كي كوي رمى التشي كوي الله عطنا سندود بهيست كان كي كم التشي تذكر وحين دقي كده الدين تو بيسوا سالدجنوه ودقن كان لو طبقه صومات قرنين وحاجه وافقسن بعد ku socon karta taasi shiicigeedii hanti wadaageedii hawlaheeda ay iska wadato laakiin dhaqankay dadka ka matalaysa diilaan sidoo haddana waa habay hamadnaatay tiina waa tii duntay maxaa soo haray ilaa habeenkii dadkii madha ilaa maanta taagan markuu isa soo ka hortaaga buu xidhan general institution umadu af bay leeday af bay umadu leeday ما كله وداد كان سمك يعيش وحق عايشه في البحر قال هو مقانا هو نعبه ومدو ده أفضل لهذا اللي قولها الله رقم بيلادي سو جرينا ورسو ما تقرن مركز لهذا إن الإنسان لربه لكنود هأوراني إنسان قام بالله يكون كانوا لكنوده من لكنوده وإن ترى هذا بني آدم هو كأن إلهي قرار يولهين لقى هذا يقول مركو حدا فقرار يبالله
aayadda macnaheedii buuxe soo maad garanin dee laga gayoon maayo haddii la israacdo qodob u tafniida soo maad garanin gabaygii tartanun baan idin raacin doonaa siday la tahay anigu waxay aqoon leedahay intii dadaal aan ogan karayo qof bini aadmi ee dadaal intii aan umad wax u sheegi karayay gabaygaasay ku dhan tahay soo maad garan indhaweyd ba gabay waan ka tegay togashadiise weligood rag baa tirinayoon tawa kulahayne maalintuu shinkii taagan yaan dholooda taabtaaye tixda keliya sida qaranun toban u soo jeedin tabta hadalka un baan si fudud ugu tiraabaaye ha yeeshee ku tookhiyaanuun